gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdiqani Maxamuud Shire ayaa saaka kormeer kadis ku tagay cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood wuxuuna halka kula kulmay mas'uuliyiinta cusbitaalka ugu horeeya isduwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool iyo waliba agaasimaha guud ee cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood wuxuuna kormeer ay ku sameeyeen dhandana guud ahaan qaybaha kala duwan ee cusbitaalku uu ku shaqeeyo iyo waliba siyaabaha uu shaqeeyo isagoo soo booqday bukaan cusbitaalka Laascaanood ugu horeeyna waxa halkaas ka hadlay isduwa wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamuud Khaliif iyo waliba agaasimaha cusbitaalka Laascaanood labadooduba sheegay in cusbitaalku uu gudbiyo adeegyo bilaash ah oo dadweynaha loogu talagalay taana horumar u tahay wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda Galmudug iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xogaal noqoshada wasaaradaha gobolka runtiina gudoomiyuhu aad iyo aad ugu mahadsan yahay iyadoo lagu jiro runtii dhamaadkii sanadka oo runtii in gobolka iyo xogaha gobolka de runtii laga warhayaa ay muhiim tahay November maanta waa 10 waanu mahadinaynaa runtii kormeerkan dhammaan gobolka oo dhan caafimaadku runtii kor buu u kacay xarumaha caafimaadka oo shaqeeya waxay gaarayaan 40 iyo something waxaana runtii degmo walba oo gobolka kamid ah waxa ka jirta xarun caafimaad MCHyo isbitaallo degmooyinka degmada Taleex Xudun iyo waliba degmooyinka kale hadda soo koraya waaweynba dhamaantood caafimaadku runtii si wanaagsan buu u shaqeynayaa isbitaalkan oo ah referral hospitalkii oo ay ka warbixisay agaasimaha runtii dhimasho u marayo sanadka hadda 6 bilood aynu soo dhaafnay waxaynu ognahay dhismayaasha halkan ka muuqday oo quruxda badan waxaynu arkaynaa biyagelintii oo isbitaalka oo dhan ceelkii riiga ahaa iyo biyihii la sifeynayay waxaynu arkaynaa insha Allah oo isagana aanu baridaha furaynaa haddii la yiraahdo electricity-ga isbitaalka oo runtii dhibaato badan ay naga hayso runtii iyo siday noola fududeeyeen waxyaabo badan oo runtii gobolka aanu ka qabanay hay'adaha noo yimaada aanu geyno gobolada iyo degmooyinka iyo shaqaalaha iyo systemka runtii si wanaagsan oo hufan bay noola fududeeyaan runtii arrimahaasina waa mudan yihiin inaan uga mahadcelino waliba ku dhiirigelino runtiina xukuumadda ay ku dhiirigeliso runtii dhalinyarada bismillaah isbitaalka waxaad moodaa waa cusub inuu la yimaado maanta isbitaalka aad iyo aad buu fiican yahay dhismihii iyo wixii waa soo dhamaadeen hadday soo dhamaadeena hay'ad MSF la yiraahdo ayaa hadda timi 3 qaybood ayay hadda gacanta ku dhigayso hadii aan leedmo 3 qaybood waa emergency-ga maternity-ga iyo pediatric nutrition-ka kulli shaqadii waa bilaabeen ilaa iyo hadda waa socotaa 12 bisha sagaalaad ayaa la furay inta kadibna gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Shire uga mahadceliyay dhammaan mas'uuliyiinta iyo bahda caafimaadka shaqaalaweynaha dadaalka ay ku hayaan sida ugu shaqeeyaan beeshinka gobolka Sool gaar ahaan isbitaalka Laascaanood oo si gaar ah u soo booqanay aad waxaan idinka mahadcelinayaa isduwaha iyo maamulka isbitaalka runtii warbixinta wanaagsan ay noo dhiibeen Soomaaliya xitaa war indho ku yaalay shaqo wanaagsan bay ka muuqataa halkaas oo looga soo dhawaado oo dadkeenu waxay u baahan adeeg hufan waxyaabaha himiladii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi ahayd in caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo waxyaabaha kaabayaasha nolosha asaasiga kor loo qaado saaka isbitaalka Laascaanood ba ka muuqataa aad baan idinka mahadcelinayaa hay'adda caalamiga ah ee isbitaalka la wareegtay iyadana runtii wax baahi badan bay dadkeena ka tari doontaa dhibaato badan baynu ku qabnay haddii emergency noqoto haddii maternity noqoto oo hooyooyinka dhalaya iyo dadka dhibaatooyin baynu ku qabnay haddii nutrition iyo nafaqada carruurta noqoto ee kor qaadistooda inta waa baahi u qabnay waxyaabaha kale oo si baahanayna runtii waa ka sahli doonaa dadweynaha gobolka Sool waxaan ku wacyigelinayaa in isbitaalka toos loo yimaado oo toos loogu xidhnaado oo maadaama adeegyadii asaasiga ay u dhiman yihiin maanta marxaati baan ka nahay in adeegyadii asaasiga cusbitaalka Laascaanood laga heliyo marka dadweynuhu inay ku xidhnaadaan iyadoon la soo cidlaynaynin aanan duulaan ku ahayn kuwa bareefadada haddana waxa weeye oo horumarku iskaabo oo meeshii wax ka jiraan baa jira haddana isbitaalka dawladda in lagu xidhnaado waa adeegyo fara badan oo runtii fiican baa laga helayaa horumar leh waana uga mahadcelinayaa runtii shaqaalaha isbitaalka iyo madaxdoodaba sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen howlahan ay u hayaan kormeerkaasna waxaan idin sheegay inuu noqdo mid joogto ah oo amarka madaxweynuhu soo bixiyay yaha in wasaaradaha laga warhayo si maamul daadejintu ay hoos ugu istaagto cid walba ina shaqeyso haddana wasaaradda arrimaha gudaha
iyo madaxweynaha wakiilka ahay labaduba waxay shaqadooda ugu badan tahay in kormeero joogta lagu sameeyo xafiisyada dawladdu ee gobolada inay shaqeeyaan. Barkad Cumar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Somaliland Laascaanood.